بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة جوبلان يا مدحوين كحجانك قدوميها برلمانك جوبلان لبضع قولة جوبلان قولها وزيرة قولها برلمانك أنسيحياشي دستورك كميلجارك جوبلان ديارياشي يدمان مرتدى شرف هل كان كسوق بكشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوهرين وحن لو داقيا إن idinku hambaliyeeyo maantay munaasabadii lagu ansixiyay dastuurka Jubbaland waxaan qabaa inay ahayd munaasabad weyn waxay ahayd munaasabad muujinaysa Jubbaland inay diyaar u tahay inay qaybteeda ka qaadato dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ayna dhamaysay intii loo baahnaa oo ugu horeyso madaxweynaha ay doorteen madaxweyne ku-xigeenka ay doorteen baarlamaanka ay soo dhisteen رئيس البرلمان كي دورتين قوله وزيرة أي سمايان ما أنتنا وحمينتي وقوم مهم سنيد أو حيركي يشرعي يقول حيي أي إسكوافقين قول بالله يتاس كوض أغسطو ومالين تاريخ له لكن مالين تواليدن لو ذاقه وحين لو ذاك تطبيق 8 سنة كهر وحمانتو كلا الله أساسي بنتلان وحنا هذا فرح سنة هاي aniga oo ka soo shaqeeyay Puntland inaan maantana ka qayb galo isla 1 Agoosto iyadoo la ansixinayo dastuurkii dawladda Jubbaland guul baan leh marlabaad waxa runtii taariikh ah 1947 magaaladan waxa yimid nin Ingiriis ah oo la oran jiray Gerald Hanley ninkaas taariikh buu qoray ka mid tahay magaalada Kismaayo dadku ugu yimid hadalladii waxa ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed waa ummadda adduunka ugu baraarugsan ugu soo jeedka badan ugu geesisan haddii wax la barana adduunka iyo Afrika ka yaabsan doonaan taariikhdaas waa 68 sano ka hor maanta waxaad cadayseen Jubbaland inaad leedihiin qabiilka la yiraahdo Jubbaland qabiil kale maanta laga bilaabo ma lihidin waxaad tiin kulligiin reer aad iyo aad baan idinku mahadinayaa Soomaaliya waxay u socotaa inay degto oo nidaam yeelato waxaad shaqada qabateen iyada oo aan cidna idinku garab istaagin laga yaabay haddaan kafto marka qaarkood in lugta leedin kaga joogsaday laakiin waa ka soo baxdeen shaqadina waa qabateen ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka iyo ummadda Soomaaliyeedba sharaf baad u tihiin magac baana u soo hoyiseen waxaan idinka codsanaynaa inaad dokumentiga ilaalisaan oo uu noqdo xeer idinkana idin dhaxeeya ummadda Soomaaliyeedna idin la dhaxeeya Soomaaliya 2016 waxay u socotaa inay noqoto ummad isku tashatay waxa wax lagu qaban karaa oo kaliya in talada la wadaago ma dhici karto inuu inta qol isku xiro uu yiraahdo talada Soomaaliya ana goynaya waa lagu khasaaray ورسول لكم خسارين بلغوا خساري والما وضت شنا ما أنتي وحل الرباه حمنيه دولة الفدرال كوايت شوغان ثلاثة دول كهلا ديجو هلا يسوي ماذا الصومالي عم بتبادينه حنا عيالنا أدبوا ما سنتين